السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معلوم عن ونكسن لمن بدونهن شرفت له لقد ضوضاها وحسن شيك ميديا وحسن شيك تي في meel kastoo aad joogtaan iyo goob kastoo aad ku sugantihiin ba waxna wanaagsan mar kale maanta waxaanu kulan gaar ah la yeelanay oo aanu kula kulanay magaalada Oslo xarunta dalka Norway nin abwaan ah oo suugaan yaqaan ah oo la yiraahdo Maxamed Saahid Afgaab. Maxamed Saahid Afgaab oo gabaya tiriya iyo mansooyin iyo geeraara bal aynu maanta aynu ka wareysanayna isku taagayna bal suugaantiisa iyo lahmujiyadka halka uu ka soo fuulay maaciil ba ku kalifay macada ku kaliftay mise jacayl ayaa ku kalifay baan leenahay. Maxamed Saahid oo kusoo dhawow waxsan sheeg media waxsan sheeg TV aad iyo aad baad u mahadsan tahay inaad fursadan siisaan si aan dadweynaha ula wadaago dareenkayga suugaad si aad sheegtay magacaygu waxa weeyaan Maxamed Saahid Afgaab. su'aasha ah yani waxyaabaha igu kalifay dareenka suugaanta horta sideedaba suugaantu marka hore kulli waa hibo ayaa u malaynayaa ha noqoto hibadaas qofku siyaabo badan u cabiraa ama dareen jacayl ka keena ama dareen iyo xaalado kale oo uu ku cabirayo marka nolosha uu ku dhex nool yahay ayuu ku cabiraa si runtii dareenka suugaantu ilaa yaraantaydii waa igu jiray laakiin se waxyaabo aan jacayl oo kale aan ka tiriyay ma jirto runtii haddii aan sheego laakiin waxaa jiray dareenno kale oo xaaladaha la bulsho la xiriira kuwaas oo aan ku cabirayay oo aan kaga hadlay waxaana jiray hadda gabayo badan oo ilaa 7 ilaa 8 hore gabay oo la duubay oo aan tiriyay mid walbana wuxuu ka hadlayay xaalad gaar ayuu ka hadlayay aad maxamed oo mahadsan tahay sida runtii suugaanta qofba waqti uu bilaabay da'bu ku bilaabaa dareen ba ku kalifa dareenkiisuna kulli islaad jacayl ama ciil ama calo ama waayaha ayaa bara si kastaba ha noqoto goortii aad bilowday iyo da'da jirtay runtii yani ilaa markii ilaa 18 jirkayga intaan xasuusto dareenka suugaantu ama hibada suugaantu way igu jirtay laakiin waxyaaba afriyo asxaabtiyo waxa aanu soo tirtirno mooyaane laakiin gabayo ama maansooyin si toos ah aan dadweynaha ula waraago ama aan meeliyada uga baahiyo imka ilaa dhowr iyo 10 sanadood ayuun baan bilaabay kuwaas oo dhowr ilaa 8 maanso aan duubay oo xaalado badan aan kaga hadlayay maanta maxay la wadaagnaa bulshada halkan laga daawanayso maanta waxaan la wadaagnaa hal maanso iyo hal gabay oo midna la yiraahdo waa la yiri midna la yiraahdo xanaqaad la dirir kuwaas aynu rabnaa inaynu maanta aynu maganaansa aynu la faguro aynu ka hadalno oo maganaansa xaaladaha ay ku saabsan yihiin isla markaana dadweynaha aynu gudbino si ay markaa ay nolol daawadaan ama ba maganaansa ay nolol socdaan way ku soo dhawow waa la yiri iyo maansadaasi bal aynu aragno oo aynu maqan leh waa sax weeye maasada leeyahay waa la yiri waxay ku saabsantay yani Soomaalidu inay dhaqan ay leeyihiin waa la yiri dhaqankaas oo sida anigu aan qabo ama aan aaminsanahay ka soo bilowday balowgii nolosha ee miyiga oo ahayd yani qaab Soomaalidu warka isu gaarsiiso oo magaraansa ayay ahayd oo xilliga waxay ahayd isgaarsiin ama communication marka xilliga deegaanka qofku wuxuu ka warramay roob buu ka warramayay xaaladu ka warramayay wax wanaagsan way ahayd oo marka wax tar bay lahayd laakiin se wali waxaad moodaa dhaqankii waa la yiri inay Soomaalidu ay qabatibeen oo wali ay magaraansa ay dabada hayaan halka adduunyada hore u martay maanta ay ka gudubtay waa la yiri ee loo gudbay dhaqan ah wax akhris iyo wax qoraal iyo cilmi baaris loo gudbay tiibad moodaa Soomaalidu inay wali ay magaraansa xitaa kuwa wax bartay ay moodaa inay wali ay dabada hayaan taa waxa tusaale kugu filan midna wadan kasto adduunyada Soomaaliya oo adduunyada kamid ah waxa aragtaa Soomaalidu meelo gaar ah inay leeyihiin oo ay ku kulmaan oo ay warka ku kala qaataan isla markaa bariga hore ee Soomaalidu waxay ka warrami jireen waxay garanayaan oo kale ha noqoto xaaladda miyiga ha noqoto roobka maanta laakiin se Soomaali maanta wax walba waa laga warramayaa nolosha maadiga casriga iyo qofka raba inuu ka warramo siyaasadii wax waanu xogaar u hayn iyo wax kasta waxay rabaan inuu ka warramo siyaasadii bay rabaan inay ka warramaan ay waa la yiri isku gaarsiiyaan diintiba ayay rabaan inay isku gaarsiiyaan waxa laga yaabaa qofku in wax walba uu ka warramo subaxii qofka Soomaaliga markuu soo kaco wuxuu ku soo talagalayaa inuu yimaado meel dabeedna wax kasta uu ka warramo مثلا حاجة أدوية كله تقف واحد وأقول لي هم كور ما دكتور وعافمات وكور ما إنجنير وفرسمان وكور ما لاير وشرعي وكور ما ده أدوية كله أما ضدك البحة أما ضدك أقوان تله لاير ما أنت هدد عافمات وحكوا يدسو حاجة ورا ماي لكن سومالي وحبوا كسو بوسدو وكشيريا دكتور رمي وحبوا كشيريا وحول وكشيريا isla markaa tii hadana waxa ku hoos jirta dadka Soomaaliyeed oo xitaa xilli bariga hore waxa jirtay wax qismo la yiraahdo oo qofku waxa uu soo arko sheeg jiray maanta xitaa
xilligii ilaa burburkii ilaa xilligan waxa weeye Soomaali deganaanshiya la'aan ku jirta ayaa waxa jirta xitaa wixii aan la hubsanin oo maalan qof waxa la oranaya qof baa wax sheegaya qofkaas ma runlowba ma garanaysa isla markii wala Soomaalida way iska qaadanayaan dabeedna way isku dhex wareejinayaan marka dhaqankaas jira sida wahsiyo waxay doontaa ka noqotayna Soomaalidu inta badan dad wax akhriya oo ma garanaysa dhaqanka aad wax u akhriya ama nama aha sidaynu aynu ogsoonahay marka sababahaas ayay maasada ku saabsan ay ka jawaabaysaa waayahay kusoo dhow bal maasadii waa la yidhi waaba cajiibe iyo adigoo inoo bilaaba okay maasadu waxay oranaysaa waa la yidhi wanaagiyo laga waa wax loo bogo jahli weeyo wadareed Soomaalidu wadaagto weligood ku soo jiray waqtigana ku lumiyaan waxyi maaha noo yimi wadaadadu xadiisaan dhaxalsi weeye waayeel warashada hidaha galay waagi bilowga noloshee wiishiyo waraabaha ayda uu helbadi jiray wax tarbuu lahaayo war wacaal wixii jira ayaa la isu wari jiray oo warkooda isu geyn jiray weydiin baa ka furan weli waxaan loo dambeeyee jahli loogu waaree hadal uu wadkii galay iyo waa la yidhi dan loo galay bulsho yahay wareertee waa yeel gaboobiyo wakiilada qabiilkiyo wadaad daalimoobo wahaabiye xambaartiyo wax magarad hogaashaa wahab baa ku haystee wahsiga iska dhaafoo wax qorka iyo akhriska badi waqtiga iyo xilliga eed wejiga iyo indhaha saar dabadeed isweydii warwareegga noloshee waalida la moodiyo waddada ku socotaan wax ogaal inuu yahay warshad iyo wax soo saar waa la isku waafaqay weedhii jibriile weynaheenu soo faray iyo waajibkiini waagii madoobaa reer yurub wareereen ilayskii warac yidhi rab u weerartaa jira waddadeeda iyo furay wadihii iyo hormuudadu haddii ay walaaqmaan dibudhaca wadaagaan sida looga weecdaa ama la iska waabshaa warqab iyo ogaal iyo weerax iyo kacdoon noqoy adduunyadan wanaag iyo daacaddii wakhtigu dilay garaadkana la weeraro runta la iska waabee beenta la isu waarido badow la iska wadan karo war moogaha aqoontiyo weel maran haddaad tahay tanag waaqla yaallo nin kastaa waraabshiyo waraabaad u halis tahay weedhayda hadalkiyo waanadiiyo wax sheegii waxba yaanan sii wadin ee waxa uu warkii yahay waagii la joogaba caado soo wadnayd iyo weedho laysu dhiibo shaah lagu wadaagiyo dhaxal xumaha weelayn wasakhdana ha sii wadan maansada koobaad ee waa la yidhi intaas ayaa nuxurkeedu ku kooban yahay waayahay maasadii koobaad ee waa la yidhi oo uu inoo akhriyey abwaan maxamed shaahid afgaab bal hadda gabaygii iyo gabayga isagana la yidhaahdo hanaqaad la dir bal isagana kusoo dhowow aad iyo aad baan u dhowanahay sadiiq gabayga kale leeyahay hanaqaad la dir isaguna wuxuu ka hadlayaa sida gabaygan wuxuu ka turjumayaa xaalad caalami ah oo wuxuu ka hadlayaa sida hanka bini'aadamka loola dagaallamo si hanka bini'aadamka loola dagaallamo waxay noqon kartaa heer gobol bay noqon kartaa heer waddan bay noqon kartaa heer qaaradeed bay noqon kartaa dee sidaynu ognahay hanka waa loola dagaalamaa adduunyada siyaabo badan baa loola dagaalamaa ama xoog iyo awood baa ayaa lagu kantaroolaa ama xeelad maskaxeed baa lagu kantaroolaa marka maasadana waxay ka hadlaysaa sida hanka loola dagaalamo iyo sida adduunyada dadka magaranaysa aqoonta leh ama dadka ku habboon ee magaranaysa inay wax hogaamiyaan marka aanay nolosha jaanis ugu helin laakiin dadkii magaranaysa aan aqoonta lahayn ay noloshii magaranaysa ay hogaaminayaan taasaanay ku hadlaysaa oo ay ka jawaabaysaa cajiib 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 bal kusoo dhowow adoo inoo bilaabay okay maansida labaad ee hanqaad la dir waxaan yidhi haada gabay hogsee kuma noqdiyo hubin la-aaneede nin waliba heerkuu gaadhsiisan yahay ayuu hadal ka dhiibtaa aniguna humaagyada fog iyo cilmaan huga ka qaadaa maantana hal baan idhi ee hoo oo balila maqal adduunyadan hagaag iyo hal abuur dadnimo iyo hanka lala dagaalamo caqligii hallaabee aaladuu hagaayaan dembi loo hamuun qabo hadhaagii la wadi jiray iyo huubadii hormuud tahay hantiiluhu ku loolamo hadafyada gumaysiga iyo diimuhu hirdamayaan dawaheega joogtoo helinkii loo mari lahaa waayuu hor joogaan yaanu haabhaabanaynaa inkastoo halaag iyo dagaal laysku hoobtiyo horshiimayaal iyo hidla dunida soo maray lagu kala hagaagiyo hambadii la daba qabay hay-ad lagu midoobiyo sharci lagu hagaa iyo heshiis caalam lagu baago hadalkana su-aal lehe heshiiskii la wada galay horta yow hoggaansamay yaasee hareer maray jawaabtan adaa heli horornimo la aadiyo hidlarnimo waa halkeedii ee horta iyo habaar qaba hoygaa garsoorkiiyo heegyaa la geeya howlaha adduunyada himilada siyaasiga awooddaha hirgelisee hal abuurka keentay haybteeda leedahay garaadkii aan hoggaansamin hawaraac u naqanayna halkiisu ku dilaya hubka nimanka haystiyo hamaha awoodda leh hayb ku diro dhaqaalaha hanaankii ay abuureen lagu wada hadaaqiyo haddana laguma celin karo hantigoos iyo wadaag ma hagaag la gaadho lagu hiran karaayo hodontinimo horseedaa mise waa huf iyo been halaq dhiigga nuugo heensadoo lafaha cuna habo iyo habsaanbeer hanaqaadla dirku halgan weeye lagu jiro iyo hadimo jaango-an kuwa aan hanuunayn heeryaqaad ahaanayn haheyda badinayn haad baalca laga yeeri hawraarta maansada iyo wuxuu hadal ku idil yahay hindisaaga gobannimo hagarli'ii tallaabsada cidna aan harhkeed noqon dulli inuu hagoogtiyo hooda quursi diidaa halis buu wajahaya
maansida labaad ama gabayga labaad hanaqaad la dirir intaas ayuu ku koobiyey isagu. aada iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed abwaan maxamed saahid afgaab oo halkan aynu kaga duubnay gabay iyo maanso aada iyo aad u cajiiba oo aynu maanta kulan ay la yeesheen bahda xasan sheeg media xasan sheeg t v magaalada Oslo xarunta dalka Norway. sidaan xaqiiqada waxaan jeclahay haddii ilaahay ka dhigo oo murtiyadkii suugaanta kugu duugan gabayadaada iyo maansooyinkaagaba haddii ilaahay ka dhigo inaynu soo bandhigi doono bulshada haddii allah uu dalo ogolaado. waxaan ku leenahay halkaa kasii socda abwaan waanad mahadsan tahay kulankan kula yeelanayna waan soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba dhammaanba bulshooyinta afka Soomaaliga ku hadasha ay halkan nagala socotaa waxaan leeyahay daawasho wacan oo wanaagsan inaga oo idin soo wadna barnaamijyo kala duwan arrimaha bulshada iyo kuwa ka hadlaya xeelado dhaadheer iyo xeelado fogintaba haddii allaha awoodda leh ogolaado. waxaan leeyahay anigoo amaanstay oo farax oo idin leh maalintu ha idin wacnaato ha idin wanaagsanaato meel kastoo aad joogtaanba. salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.